bilowga taxanaana cusub waxaa la baryaa gabar joogta gurigeeda taasoo lagu magacaabay Yumin Jae waxayna markaan ku diyaarinaysaa dugsigeeda waxayna maalintii ugu horeysay oo ay aadi doonto dugsigeeda wayna leebisatay iyadoo qaatay uniformkii dugsiga wayna soo dhaqaajisay ugu dambeyntiina waxay markaan imaanaysaa dugsiga daawad intaan muuqaalka si guda galin canshuurta iska bixi oo la galay muuqaalka haddii dalkana ka cusubtaana ka mid noqon saxabadan ugu xiran markii dugsiga timidba waxay arkaysaa dhammaan ardaydii kuwaasoo soo galaya dugsiga gabadhiina waxay soo raacday ardaydii ugu dambeyntiina waxaa markaan la keenyaa fasalkeeda macalinkeena waxa uu bilaabay inuu dhammaan ardaydii gabadhii baro isagoo markaan u sheegay gabadhan inay cusub tahay gabadha Yumin Jae aad bay u cabsanaysay iyadoo xitaa aanan ardayda indhaha u dhammayn karin ugu dambeyntiina ardayda ayay la hadashay waxayna ku tiri magacayga waa Yumin Jae ee barasho wanaagsan dhammaan ardaydiina hadalkeedii aad bay u soo dhaweeyeen waxayna bilaabeen inay u sacbiyaan ugu dambeyntiina waxay markaan soo fadhiisanaysaa kursigeeda waxayna bilaabday inay markaan dhammaan ardaydii casharadii la qaadato kadibna waxay bilaabday inay markaan raadiso gabadh iyada iyo saaxiib ka dhigato laakiin dhammaan gabdhaha way u jaakirayeen iyagoo markaas aanan la hadlaynin waxayna u tagaysaa gabdha meel fadhiyay waxay markaan ku tiri hay saaxiib malayla noqon karaa laakiin gabdhihii way u jaakireen gabdhay diinsheed markii gabdhii u jaakireenba mar kale ayay soo baxday waxayna markaan u imaanaysaa wiilal meel fadhiyay wiilashii meesha fadhiyana iyagana way u jaakireen waxayna markaan gabdha diinsheed dareemaysaa kalinimo aanan caadi ahayn aad bayn u murugootay wayna soo baxday iyadoo markaan ka soo baxday galaaska markii albaab ka soo baxdayba gabar ay markaan ku dhacday gabadhaana waxay u muuqatay mid aad u aamusan oo maskiin ah waxayna bilaawday gabadhii miskiinteed inay markaan usoo tagto shukulaato ay cunaysay meel ayayna sawdo fariisteen waxayna bilaabeen shukulaatada inay markaan cunaan gabadhaana waxay noqotay gabadhii ugu horreysay oo ay la saaxiibto saaxiibteeda ayayna u geysay waxayna bilaawday inay markaan gabdhii la sheekaysato intaa kadibna gabadhii diinsheed gabadhii waxay bilaawday inay markaan siiso shukulaatada laakiin iyadana midaasi way ka diidaysay waxaana markaan kor ka arkaya wiilkana waxa waa wiilka ugu quruxda badan fasalka ugu dambeyntii gabadha Yumin Jae way ka qaadanaysaa gabadhii shukulaatadii wayna soo dhaqaajinaysaa iyadoo markaan ugu dambeyntii soo fariisatay fasalka laakiin xiisadooda macallin muusan ku jirin dhammaan ardayna break time ay iska qaadanayeen wayna iska baashaalayeen kadibna gabadhii shukulaatada serious iyo saaxiibadada ayaa markaan u yimid waxayna bilaabeen gabadhii Yumin Jae inay markaan u sheekeeyaan aad bay u jeclaysanaysa gabdhahan sheekadooda waxay markaan ku yiraahdeen hay jaraat ma nala soo cunaysaa iyadana waxay dabcad inay diido laakiin gabdhihii way wadeen wayna soo dhaqaajiyeen ugu dambeyntiina tennis ee wiil ku ciyaariyeen ayaa markaan ku dhacay wiilashii mid kamid ah markaan u yimid waxuuna ku yiri hay baloonig manigu dhacay waa niga raali gelinaynaa gabdhihiina waa uu raali geliyay gabadhii Yumin Jae waxay bilowday inay markaan cabirto dhammaan wiilasha halkaani joogay waxay halkaasi ku arkaysaa wiil aad u qurux badnaa waxa uu ahaa wiilkii aan horey u soo arkaynay waxaana wiilkan lagu magacaabaa Masargu wiilkan marka aragtana quruxdiisa aad bay ugu heshay laakiin ma aysan awoodin inay u sheegto gabdha ayaa markaan soo raacday gabdhihiina waxay bilaabeen inay markaan la hadlaan saaxiibkoodana waxa uu bilaabay inuu markale raali geliyo kadibna wiilka Masargu waa uu soo dhaqaajiyay isagoo markaan doonay inuu gabdhahan dhaxmar uun aado fasalkiisa gabadha Yumin Jae agteeda ayuu maray laakiin gabadha Yumin Jae waxa dharkeeda ka qabsanay jintiisa wiilkiina waxa uu bilaabay inuu dilanjartii ka soo dhaco laakiin gabadha Yumin Jae ayaa markaan qabatiyadu badbaadisay dhammaan asxaabteena midaas aad bay uula yaabeen iyagoo la shoogay hay cafwan ma rabin inaan ku qabto laakiin waan ka naxay wiilkiin aad buu u xishooday waxuuna bilaabay inuu halkaas ka dhaqaajiyo gabadha Yumin Jae waxay markaan tiri alla aniga maxaan sameeyay ugu dambeyntiina gabdhaha way soo dhaqaajin iyagoo markaan yimid galaaskana waxa markaan ka istaagay kaab galaaska waxuuna bilaabay dhammaan ardayda inuu markaan u qudbeeyo oo markaan u sheego inuu soo dhawiyo imtixaanka qof kastana oo imtixaankaas ka diyaariyo oo uuna soo baxay isagoo markaan u imaanay gabdha Yumin Jae waxaan markaan ku yiri adiga waad cusub tahay waxaana qasaba inaan wax kasta ka daba geyno waxaan ka rabnaa xageen kala soo xiriirnaa waxaana bilaabay gabdha Yumin Jae inuu la sheekaysto oo Instagram-keedii ka qaato markii nambarka uu ka qaatana uu ka tagay waxaa la sheekaysay saaxiibteedana waxay bilaawday iyadana Instagram-ka inay ka qaadato si uu la soo xiriirto cabar ayna halkaas ku sheekaysanayeen intaa kadibna ugu dambeyntii waxa markaan soo galay macalinka waxaana bilaabeen inay markaan xiisadoodii si degan ku qaataan gabadha Yumin Jae waxay markaan ag fadhiisanaysaa wiilkii ay ka helaysay kaasoo ahaa Masargu laakiin wiilkan Masargu ma uusan la hadlaynin maadaama isagu waa mid aad u xishood badan iyadana sidoo kale hadal ma aysan u furin wayn isfiirinayeen oo keliya xiisadan hal meel ayay ku wada qaadanayeen ugu dambeyntii waxa markaan u dhamaanaysay xiisada gabadha Yumin Jae way soo laabatay iyadoo markaan ku soo laabatay maqsinkeedii ay saaxanaysay waxaan halkaas u imaanay wiilka ayaa bilaabay inuu halkaas u sheekay oo ku yiraaho hay waan kugu soo dhaweynayaa galaaska maadaama aad galaasku cusub tahay intan waxaan u imaaday inaan adiga ku sheekeeyo si aadan cidlo u dareemin aniga ma jeceli gabdhaha quruxda badan inay cidlo dareemaan waxaan rajaynayaa iskuulka inaad la qabsan doonto ugu dambeyntii wiilkii uu kasoo tagaysay iyadoo markaan soo aadaysay xiisada markay soo aaday waxa markaan u imaanay saaxiibteeda waxay markaan ku tiri hay saaxiib qoraalkayga ma aragtay waxaan kala soo xiriiriyay Instagram-ka
instagramkaada waa eber oo wax falow xitaa ma haysto aniga ayaa ku falow gareeyay dhammaan ardadana ma kaaga falow gareeyay waxayna bilaawday dhammaan gabdhiyaalkaasi joog inay uga falow gareyso si ay falow fiican u hesho laakiin iidan waxay ku tiri midaasi muhiim ma aha anigana ma rabo falow oo keliya waxaan rabaa halkan inaad igala soo xiriirtaan ugu dambeyntiina gabadhii naanuhood bay soo dhaqaadinaysaa waxaana markaana u amaanay wiilkii kaabgalaaska waxuuna ku yidhi hayi iskuulka mala qabsatay oo ma fahantay iidana waxay ku tiri sidaas ayaan u malaynaya hadda waan fahmay siday ila tahay waxaana rajeynaya inaan si fiican usii fahmi doono wayna kasoo tegaysaa kaabgalaaska iyadoo markaana kaligeed ah waxayna markaan imaanaysaa banaanka waxayna bilaawday inay jawi qurux badan ku qaadato banaanka iyadoo kaligeeda ah ugu dambeyntiina banaankii way kasoo tagtay iyadoo markaan timid dukaankii ayaa bilaawday markaan wax ka iibsato isla markii waxaa halkaas u amaanay wiilkii Mr. Gu ahaa wuxuuna bilaabay inuu markaan gacanteedii la boodo isagoo markaas yiri wari adiga maxaa ka qaldan laakiin wax ogaanaya in ninkan ay wax ka iibsanaysay wayna soo wada dhaqaajin iyagoo markaan yimid meel fadhi ah waxayna bilaabeen inay halkaas biyo ku wada cabaan oo ay ku wada sheekaystaan waxayna ahayd markii ugu horreysay oo ay labadooda wada hadlaan oo ay wada sheekaystaan waxaana wiilkii Mr. Gu ku yiri hay adiga waxaad u egtaa gabar aad u qurux badan laakiin waxaan dareemay inaad aad u xishood badan tahay idan waxay ku tiri adigaba sidoo kale waxaad tahay wiil aad u qurux badan laakiin dadka inta badan lama hadashid sida aan ka arkay isagana waxa uu ku yiri sidaad ii moodo ma ahi maxaa yiri aniga aad baan u warbadanahay laakiin inta badan waan xirxiranahay halkaas ayana wada sheekaysi aad u qurux badan ku wada qaatay labadooduba ugu dambeyntiina gabdhii Yuminjeed way soo dhaqaajisay iyadoo markaan timid guriga waxaana bilaawday inay guriga markaan casharadeedii ku diyaarsato si ay markaan ugu diyaar garowday imtixaanka sidoo kalena wiilkii kaabgalaaska imtixaanka ayuu diyaarsanayay si isagan ugu diyaar garoobay imtixaanka uusan u dhicin subaxdiina way soo wada dhaqaajiyeen iyagoo markaan yimid dugsiga markay yimaadeen basta markii waxa uu soo galay macallinkii waxuuna bilaabay inuu markaan xisdiisii bixiyo macallinkiina wuxuu markaan u keenay gabadhii ayna halkaas ku soo dhaweeyeen waxayna gabadhii jinsi soo xasuusanaysaa waqtigeeda halkaan lagu soo dhaweynayay gabadhiina fasalkii ayaa si diiran looga soo dhaweeyay intaa kadibna iyadii asxaabteedii way soo baxeen waxayna markaan yimaadeen banaanka waxayna bilaabeen inay halkaas ku fara ciyaaraan ugu dambeyntiina gabadhii Yuminjeed waxay markaan soo galaysaa musqusha waxayna markaan halkaas kula kulmaysaa gabadhii cusbeed waxayna bilaabeen inay markaan halkaas kula sheekaysato gabadhii cusbeed iyadoo markaan ku tiri ay halkaan ku soo dhawow hortada iyo halkaan lagu soo dhaweeyay laakiin gabadhii waxay ku tiri waad maadsantahay wayna ka dhaqaajisay waxayna markaan ku soo laabteen galaaskii waxayna bilaabeen galaaska dhexdiisa markaan ku wada sheekaystaan dhammaantooda iyagoo halkaas siiga baashaalayay halka gabadhii cusbeedna ay halkaas fadhiisay oo aysan weli yeelin wax saaxiib ah gabadhii cusbeedna midaas aad bay u karaahsanaysay intaa kadib xiisada waxaa markaan soo gashay macalimad waxayna bilaabeen in markaan u diyaargaroobaan cashirkoodii qaadashadiisa gabadha Yuminjeedna waxay ag fadhisay wiilkii Mr. Gu ahaa wiilkii Mr. Gu hurdo ayaa qabatay miiska ayuuna ku saaxday subaxdiina waxaan aragnaa wiilkii Mr. Gu iyo saaxiibkiisana waxa uu kaabgalaaska waxna ku sheekaysanayeen banaanka iyagoo wata darees isku eg maxaa yeelay dareeskana waxaa lagu ciyaaraa ciyaaraha basketballka Yuminjeed saaxiibteeda iyo halkaas u timid waxay markaan ku tiri hay waxaan rajaynayaa ciyaartii inaan aniga idinla jiro maxaa yeelay aad baan u jeclahay inaan idinka xaggeena ka safto laakiin iyaga waxay ku yiraahdeen aniga adiga kuma baahnin maxaa yeelay adiga banooni ma qaadan kartid wayna ka dhaqaajin iyagoo markaas ka tagay intaa kadibna waxaan markaan aragnaa gabadhii Yuminjeed kaligeed ayaana meel fadhisay isla markiiba asxaabteeda ayaa qoraal u soo diray waxayna u sheegeen inay doonayaan inay aadaan kalaab ciidan midaas aad bay ugu farxday wayna soo dhaqaajisay intaa kadibna waxaan aragnaa wiilkii Mr. Gu iyo saaxiibkiisa wiilkii Mr. Gu ahana saaxiibkiisa wuxuu ku yiri hay saaxiibaniga waxaan rabaa inaan aado kalaabka hore ku sii wadaya laakiin wiilkii Mr. Gu waa uu diiday balse ugu dambeyntii waa uu soo raacay waxayna yimaadeen kalaabkii intii ay kalaabka joogeen waxay bilaabeen in halkaas waqti aad u qurux badan ku wada qaataan dhammaantooda iyagoo halkaas ku wada sheekaysanayay gabadhii Yuminjeedna waxay markaan ku yiraahdeen adiga waxaad u egtaa fanaanad aad baan u cod macaan tahay waxaan ka rabnaa inaad heesnoo qaado waxayna bilaawday gabadhii Yuminjeed inay halkaas hees ka qaado oo in u qaraaxayso asxaabteeda waqti xaadirkaasna aad bay u cabsanaysay iyadoo argagaxaysay intaa kadibna gabadhii Yuminjeed markii si dhameysay way soo baxday markii banaanka soo baxday waxaa markaan istaajinay wiilkii Mr. Gu waxaan markaan ku yiri waxaan dareemay inaad oo badan dareemayso maadaama aad hees dheer qaaday waxaana bilaabay markaan biisiyo biyo ayay bilaawday markaan cabto waxayna ku tiri hay adiga heesaha ma jeceshahay waxaan isaga ku yiri may inta badan aniga ma jecli heesaha mana dhageysto idan waxay ku tiri midaasi waan fahmay laakiin adiga markasta waxaad la aamusan tahay anigana waxaan dareemay markii aan heesay inaad heesayda dhageysanaysay anigana heesteed aad u macaanay sida ila tahay laakiin isagana waxa uu ku yiri kulli aniga heesaha kama helo ugu dambeyntiina fadhiga ay ku soo wada laabteen asxaabtoodiina waxay bilaabeen markaan u wada sheekeeyaan ugu dambeyntiina kalaabkii way ka soo tageen wiilkii Mr. Gu iyo saaxiibkiisana waxay bilaabeen inay markaas ka sheekaystaan habeenkii isla habeenkiiba waxa uu bilaabay inuu markaan la sheekaysto gabadha Yuminjeed iyagoo bilaabeen in qoraal isdhaafsadaan wada sheekaysi fiican ayay qaateen gabadha Yuminjeed dhammaan asxaabteeda wada sheekaysanaysay subaxiina way soo dhaqaajin iyagoo markaan yimid dugsiga markay yimaadeenba macallinka ayaa soo galay waxaana bilaabay markaan xisdiisii bixiyo gabadha Yuminjeedna waxay ku tiri wiilkii Mr. Gu hay adiga ma maqashaa
isagana wuxuu ku yiri maya kuma maqlo dhagdhaga ay xiriirsan wayna ka aamustay iyadoo markaas aan la sii hadlin maadaama uu dhagdhaga u xiriirsanaa macalinkan ugu dambeeyay casharkii uu bixinay waa uu dhameeyay dhammaan gabdhiina waxay bilaabeen halkaas sawirkooda galaan iyagoo halkaas ku baashaalayay gabadhii Yuminjeed saaxiibteedana waxay markaan u maaneysay gabadhii cusbeed waxay markaan ku tiri hay saaxiib waxaan rajeynay inaad adig u baahan tahay saaxiib cusub laakiin anaga ayaa asxaabtaada haddii aad doonto waadna soo dhexgali kartaa laakiin gabadhii cusbeed way ka aamustay iyadoo markaas aanan la hadlin intaa kadibna ugu dambeyntii gabadhii Yuminjeedna waxay markaan u maaneysay gabadhii cusbeed waxayna ku tiri aniga waxaan dareemay adig inaad tahay gabar aad u qurux badan oo aad u aamusan oo aad u akhlaaq badan midaas ayaan kaaga xiranayaa gabdhaha kale sidaas ayaan adiga kuu soo aaday waxaan ka rabaa inaan adiga ka dhigto saaxiib wanaagsan waxaan rajeynaa inaad saaxiib wanaagsan ay noqon doonto halkaas ayna labadoodba ku wada sheekaysteen Instagram-kana ku kala qaateen gabadhii Yuminjeed way soo baxaysay iyadoo markaa imaanaysa guriga waxaana bilowday inay markaas ka diyaariso casharada kadib markii casharada diyaarsatay iyadii saaxiibteeda way soo raacday iyagoo markaa soo aaday banaanka laakiin gabadhii Yuminjeed way diidaysay markii ay banaanka yimaadeenba waxay markaa banaan ku arkayaan wiilkii masarguuha iyo gabar kale oo banaan ku sheekaysanaya markii midaan arkeen aad bay ula yaabeen wayna ka dhunteen iyagoo markaas aanan doonayn inay tusaan doonayaan inay hadalkooda dhageystaan laakiin wiilkii masarguuha gabadhan waxay ku dhahaysay adiga ayaa xiriirkeena jaray waxaana tahay khiyaanoole aad baan ugu xumay in adiga kula saaxiibo waxaana bilowday gabadhii wiilka masarguuha inay ka tuurto taleefankiina waxaa gacanta ku dhigay gabadha Yuminjeed iyo saaxiibteeda gabadhiina halkaas way ka dhaqaajisay wiilka masarguuhana wuxuu bilaabay inuu markaan xaggoodii soo aado maadaama gabadhii ay taleefkiisa ugu tuurtay gabadha Yuminjeed saaxiibteedana waxay markaan soo tuuraysa gabadha Yuminjeed waxay markaan ku tiri waan adiga la soo hadashaa gabadha Yuminjeed markay soo istaagtay way garan waysay waxay kula hadli lahayd waxayna ku tiri aniga hadda ayaan halkaan ka imid sidaas ayaan halkaan u imid laakiin wiilka ayaa ku yiri hay hadalkani miyaad dhageysanaysay laakiin iyadu waxay ku tiri maya hadalkiina ma dhageysanaynin hadda kaliya ayaan ka soo baxay guriga taleefkiisa ayuu ku wareejisay iyadoo taleefkiisa siisay ugu dambeyntiina way soo wada baxeen iyagoo markaan imid dugsiga markay yimaadeenba waxay bilaabeen halkaas ku wada sheekaystaan dhammaantood oona waqti aad qurux badan ku wada qaataan maalintii xigtana gabadha Yuminjeed iyadoo markaan u socdo gurigeeda waxay markaan arkaysaa wiilkii masarguu ahaa kaasoo markaan wadada hormaraya markay aragtayba waxay bilaabeen markaan ka cararto sidoo kalena wiilkii masarguu ahaana iyada markuu arkay aad buu u cabsaday ugu dambeyntiina gabadha Yuminjeed waxay go'aansatay inay wiilkaana salaamto oo ay wajahdo wayna soo dhaqaadinaysaa waxayna bilowday inay wiilkii salaamto in xaggiisii soo aado wiilkiina waxay bilowday inay markaan la hadasho inay markaan ku tiraaho hay xilligaani maxaad meelahan ka soo doontay xilligaani ma aadan soo bixi jirin maxaa dhacay maanta sidaan filay waxaa kuu daadisay saaxiibtaada oo khiyaanolow ayaa tahay laakiin waxay dareemaysaa inuusan wiilkaani maqlaynin maxaa yeelay dhagdhaga ayaa dhagaha ugu jiray waxayna bilaabeen labadooda inay soo raacaan oo ay soo wada sheekaystaan waxayna markaan yimaadeen goobtii ciyaarta gabadha Yuminjeed waxay markaan gashanaysaa kaabaheeda iyadoo markaan isdiyaarisay saaxiibteedina sidoo kale way isdiyaarisay waxayna markaan u diyaargaroobeen ciyaarta waxayna bilaabeen inay markaan training fiican wada qaataan oo inay markaan koox kala baxaan gabadha Yuminjeed iyo saaxiibteedina way isla jireen iyagoo markaan halkaas ku wada sheekaysanayay laakiin gabadhii cusbeed halkaas iska taagneed iyadoo markaas aanan haysan cidla jirta ugu dambeyntiina gabadhii cusbeed tiim ayay ku biirtay markii traininka soo qaateenna way soo wada dhaqaajiyeen iyagoo markaan ugu dambeyntii yimid dugsiga ayay bilaabeen inay markaan ku wada sheekaystaan dhammaantooda waxaad moodaa dugsigan inuu yahay goobta sheekada oo uusan ahayn meel casharo lagu qaato maxaa yeelay markaas halkaan ay isaga sheekaystaan oo ay waqti ku wada qaataan aniga waqtigii aan ardada ahayn sheeko iska dhaafi xitaa ma aanan heli jirin waqti aan si fiican ugu wada hadalno inkastoo waqtigaan iskuulka joogana waqti kooban u ahaa ugu dambeyntiin gabadha Yuminjeed waxay markaan arkaysaa saaxiibteedii taas ustaageeda uu saariyaha muuqaal qoraal ayna kusoo dul qortay markay midaan aragtina saaxiibteedii aad bay u yaabtay ugu dambeyntiin gabadha Yuminjeed way soo baxday iyadoo markaan soo aaday banaanka waxayna markaan la kulmaysaa gabadhana waxay ka mid ahayd gabdhihii dugsiga waxayna sidoo kale ahayd askari gabadhii markay la kulantay waxay bilowday in markaan la sheekaysato waxayna markaan wax badan ka weydiinaysay ciidamada laakiin maanta waxaan halkaan kusoo koobaynaa qaybtii koowaad ee taxanaheena maanta muuqaalkan intaan ayuu ku egyahay intaan muuqaalkaan midka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabaadiino.